nimankii halkan ka qaylinayay inay Soomaali difaacayaan isu dhigayay eedaha aan salka iyo raadka toona lahayn jeedinay TikTok dhex marsanay horta fariintii markay duubtay waa iska baxeen jawaabna dadka Soomaaliyeed in la siiyo may rabin waa kuwa rag halka fadhiya xabad ninka ma joogo xildhibaan qalad ma joogo xildhibaan xayla ma joogo xildhibaan Saddam ma joogo iyo raggii kale marka hadlayeen sida uu tawtawlahaayeen ay isaga dhigayeen niman maxaa la yiraahdaa wax weyn haya ayaad moodaysa marka xaq waxaan u leenahay haddii su'aalna la weydiiyo qofka su'aashana weydiiyo inuu jawaabteeda sugo inta ka soko iyagoo maqan baan ka jawaabaya ha ka dhageystaan TikTok-ga xildhibaan qaladto wuxuu weydiiyey oo uu rays gareeyay su'aal la yiraahdo xisaab xidhka iyo miisaaniyaddu isma laha waana arrin oo had iyo jeer ku celceliyo hadalkiisa wuxuu samada ka dhigay inaan lecture-kii soo gudbinin oo aan golaha u keenin mar walbana waa ku celceliyaa ninba waxa la yiri waabu uu indhalaayo marbu indhuhu u furmeen hadda maalintii uu bakayla arkay waa indha beelay haddii la yidhaha baabuur baa halkaa maraya wuxuu idhahdaa bakayla ma leegyahay horta xildhibaan qaladto maalin kasta halka yimaado lecture-kii ma wadaan buu idhahdaa waxaan filayaa muddo yaroo uu arrimaha maaliyadda meelo ka shaqeeyey buu lecture ka yaqaanay kii buu ku soo celiyaa maalin walba xisaab xidhkan hannaan caalamiya iyo hannaanka ay nafarta miisaaniyadda iyo xeerarka maxaan ku dhahdaa maaliyaddu baa lagu soo diyaariyaa miisaaniyadda saldhig u ah qaabka xisaab xidhka loo soo diyaarinayo